meel kasta taalaan meediyaalkay ku jiraan waxa ka hadlo soo galay maamulka Puntland Somaliland Puntland inkan oo soo gashay ka hadashay ayagoo qabiilka leeradir u hadlaya ayuu jirin waxa intaas oo la wada ogyahay intaas oo shir in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hadda ma u gudbisan arrintan odayaashii labada garab mid kamid ah maadaama aad tihiin in cabashadu taagan tahay heshiisyadiina qodobo kamid ah in la jabiyo hadda sida aad sheegteen annagu dawladda cabasho uma aanan gudbin hore loo gudbiyay wax garad meel kasta waa ogyahay annagu hadda ujeedkeena kuma salaysna dawladda ayada hadii wadanka mas'uuliyad ka saaran tahay ayada la xalkeedii wax waajibaadkeeda inay ka soo baxdo annagu waxaan ka hadlaynaa hadda annagu waxaan beesha habargidir waxaan doonaynaa waxay tahay inaan gaarsiino dadkeena meel kasta oo gobolada Muqdisho dibadda ay jiraan warkeena inuu gaarsiino inuu dagaalkaasi dagaal isbahaysi yahay oo beesha direed ah marka koobaad marka labaad uu yahay Somaliland marka labaad uu yahay Puntland marka la Jubaland uu yahay in ku jirto dawladda gacanta kula jiraan inaan dagaalkaas annagu wajihi karin oo dagaalkaas kaliya gobolka waxaan inaan wajihi karin marka sidaas aawadeed mid maqan dawlad jira iyo mid gobol jooga iyo mid Muqdisho jooga siyaasi haduu yahay haduu dawlad ku jiro haduu baarlamaan yahay haduu shiiq yahay haduu oday yahay haduu dhalinyaro yahay annagu gurmada uga baahannahay